haddaba owners equity markaa waanu soo sharaxnay haddaba sidee maxaa bedela changeska ku dhaca in owners equity si fiican ula soco maxaa nuqsaamiya ama kordhiya capitalka weeye macnaheeda ama aan moolimaalka hantidii uu ku leeyahay shirkadda ama moolimaalka hantida uu ku leeyahay ama xaq uu ku leeyahay maxaa kordhin kara maxaase yarayn kara waxaa kordhin kara owners investment inuu investmenti kale ku soo daro inuu shirkadii investmenti kale haddii single ay ahaan lahayd oo kale inuu capitalkii wax kale ku soo daro haddii partner ay ahaan lahaayeen sidaas oo kale partnerskii inay wax kale ku soo biiriyaan oo ay share kale ku soo daraan sidaas oo kale waxaa kordhiya oo positive ka dhiga oo kordhin kara business earning businesska inuu wax kasbado waa inuu businesskii profit helo weeye iyo business earning marka labadaa waxay kordhiyaan xuquuqda moolimaalka ama rabalmaalka ama xuquuqda ninka shirkadda iska leh ayay kordhiyaan waa changeska ku dhici kara ayaanu ka hadlaynaa marka labada tan waxay kordhinayaan owners investments uu ku kordhiyo ninkii ownerka ahaa ama business earnings ama businesskii inuu sameeyo kasab ama income ama net income inuu soo galo oo faa'iidooyin soo galo waxay kordhinaysaa marka xuquuqdii ninka ownerka ahaa sidaas oo kale waxa uu ku yaraadaa oo isbedel u keena ninka hantida iskale ee shirkadda hantida ku leh waxaa isbedel hantida uu ku leeyahay shirkadda iyadana u keeni kara oo nuqsaamin kara tani waxay ahayd wixii kordhinayay waa isagoo investmentigii wax ku soo dara iyo isagoo income sii hela oo shirkaddii income xaqiijiso waxa uuna ku yaraadaa isagoo payment bixiya iyadoo shirkaddii ama masalan tusaale ahaan nin haddii single uu ahaan lahaa capitalkiibuu wax ka qaatay baabuur buu ka qaatay toos wuxuu u yaraynayaa markaasi capitalkii sidaas oo kale dividensiga sidaas oo kale muxuu ahaa waxaa la bixiyey waxaa sida shirkadaha muxuu ahaa corporationka oo kale ama partnerka oo kale dib waxaa la bixiyey xisaab waxaa la wasacay faa'iidadii waa yaraanaysaa taasina way yaraanaysaa marka haddii tusaale ahaan shirkaddii incomekeedii soo galayo idilnetkii oo kale oo idin lagu daro capitalkii ama muxuu ahaa owners equitygii wuu kacaya amountigii wuu fara badanaya saa darteed tanna way badisaa oo labada tani owners investmentigii iyo business earningkii businesskii waxay u kasbanayay labadaba way badinayaan labadana way yaraynayaan haddii payments la bixiyo oo lacaga la bixiyo ama nin capitalkii qayb looga celiyo isla markii capitalkii ugu yaraanaya sidaasoo kale waxaa xuquuqda shirkadda yareeya nimanka ownerska equityga la yiraahdo ama xuquuqda xamlatul asumka la dhahayo ama stockholderska oo kale ama capitalka oo kale sidaasoo kale isagana waxaa yareeya business loses businesska khasaarooyinka soo gaara isagana si automatically ah wuxuu u yaraynayaa capitalkii ama owners equitygii haddii shirkaddii ay ahayd partnership ama corporation company haddii uu ahaan lahaa intaba marka labana way kordhisaa waa iyada oo investmentigii la kordhiyo ama uu income faa'iido ayna soo gasho labana way nuqsaamisaa iyadoo incomekii dib loo celiyo ama muxuu ahaa businesskii uu khasaaro keeno ama faa'iidadii dividends la sameeyo oo la tawsiiciyo the accounting equation haddaba waxaanu qaadanaynaa markan accounting equation ama sinaanta accountingka waayo accountingka wuxuu leeyahay laba garab wuxuu leeyahay garab la yidhaahdo assets iyo dhinac jira ama garabka kale oo ay ku wada jiraan laba shay oo ah liabilitieskii oo lagu daray owners equity haddaba mar waliba waxaad ogaataa accounting equationka ama the equality of the accounting ama sinaanta accountingka in ay mar waliba ay ku xiran tahay mucaadalada tan ama formulaha kan aanu arkayno assetska waxaa lagu helaa liabilities oo lagu daray owners equity haddaba total of the assetska aanu haysana totalkiisa saad u arkayso waxa weeye cashkii waxaanu haysanaa 22,000 notice receivable ama kambiyaalihii aanu qabanay
muxuu ahaa nalasiya naloo qoray waxaanu haysanaa 10,000 daymihii tijaarada waxaanu haysanaa intaa alaabadihii kala supplieski waxaanu haysanaa intaa landigii waxaanu haysanaa intaa buildingkii waxaanu haysanaa intaa all waxa weeye accountiyadan oo idil waxa weeye major accounts ayaa la yiraahdaa oo waxay ka muuqdaan mar waliba balance sheetka ama hadba dabcan waxay ku xiran tahay hadba kambaniga account-ku uu samaynayo waayo waxaa laga yaabaa ragga qaarkii inay supplies ku haysan oo alaabadaha caadiga yaryar inaysan ku haysan saasoo kale qalab wax kambani waxaa laga yaabaa inuu office equipment uusan jirin marka kambani weliba waxay ku xiran tahay kambaniga qaarkood waxaa laga yaabaa land iyo building inuusan jirin dhul iyo dhismo inuusan jirin marka hadba waxay ku xiran tahay businesskaasi accountiyada uu samaystay ama accountiyada ama resourceska available-ka ka ah ee uu leeyahay haddaba accounting equationkii marka accounting equationkii marka assetkeeni waxa uu la egyahay 300 oo kun marka 300 oo kun oo hanti ah waxaa sheeganayo niman la yiraahdo xuquuqda dibadda liabilitieska waxa weeye waa xuquuqda dibadda waa 80,000 oo kambaniga waxaa lagaga sheeganayaa banaanka 80,000 waa saddexda notice payable waa kambiyaalayaashii aanu qornay ee aanu siinay dibadda accounts payable waa badeecadihii aanu dibadda ka soo qaadanay ee aanu deynta ku soo qaadanay waa nimanka supplierska ama vendorska sida ragga quickbookska ay u yaqaanaan waa accounts payable sidaasoo kale salaries payable ninka laftiisa wuu la macno yahay waayo waa nin shaqaale ah oo bannaanka kaa taagan waayo waxa idinka dhexeeya waa salarigaas saa darteed waxaan ku magacownay xuquuqda dibadda marka xuquuqda dibadda oo lagu daray xuquuqda gudaha ama nimanka owners equity-ga waxa ay ku sheeganayaan iyagana ay shirkadda ku maalgeliyeen waa maalgeliyayaashii maalka shirkadda ama nimanka shirkadda maalgeliyey nimanka shirkadda maalgeliyey amountiga ay sheeganayaan waa intaa waa 150,000 iyo 70,000 nimanka shirkadda dibadda deynta ugu lahna total amountigooda waa intaa marka labadaasi marka la isku daro waxay matalayaan hantida shirkadda u taala oo ah assets of the company haddaba assets of the company waxaa lagu helaa haddii aad doonayso inaad soo saarto formula ahaan haddii aad doonayso inaad soo saarto waxaa lagu helaa liabilities xuquuqda dibadda oo lagu daray xuquuqda gudaha ama owners equity marka waxaad odhanaysaa assetskii tusaale ahaan baad usoo qaadan kartaa liabilitieskiina waxaad usoo qaadan kartaa l plus halka pluskaad ku qoraysaa owners equityna waxaad usoo qaadan kartaa o e marka saa ayaad mucaadaladaada usoo saaran karaysaa haddaba hadhow sidaasoo kale haddii aad doonayso capitalka inaad hesho ama owners equity iyadana inaad hesho waxaa owners equity-ga way ku sahlan tahay oo waxaad yeeli karaysaa assetkii ayaad waxaad ka jaraysaa liabilitygii oo owners equity maxaa lagu helaa tusaale ahaan haddii aad doonayso inaad samayso adoo qoranayo waxaad odhanaysaa owners equity waxaa lagu helaa assetka oo laga jaray xuquuqda dibadda marka sidaasoo kale haddii aad doonayso iyadana liabilitieski inaad hesho waxaad odhanaysaa assetkii oo laga jaray owners equity si aad u hesho xuquuqda dibadda marka formulayaasha ayaad isku rogrogi karaysaa marka amountiyada adaa lagaa doonaya inaad ka soo aruursato balansheetka kambaniga ama balansiyadii inaad soo aruursato balansiyada assetska inaad soo aruursato balansiyada liabilitieska inaad soo aruursato balansiyada owners equity-gana inaad soo aruursato haddii markaa mid ka mid uu kaa baxsan yahayna waa saan kuu sheegay hadba formulaha ayaad isku rogrogaysaa asset waxaa lagu helaa liability oo lagu daray owners equity haddii aad doonayso capitalkii inaad hesho ama owners equity iyadana inaad hesho haddaad doonayso waxaad odhanaysaa liability asset owners equity waxaa lagu helaa assetkii oo laga jaray liability ka oo laga jaray kan ayaad ku helaysaa markaasi kan haddii aad doonayso liabilitieskana waa iga qoro waxaad ku helaysaa liabilitieskii assetkii oo laga jaray owners equity marka waxaa kuu soo baxaya qiimaha liabilitygii kambaniga